السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا مقالا نوغو حدلينو سي هرداعة آديادا ماسنتي انتا ارديسو قبل جريسي كورسكا اما جرافيك ديزاينكا آدا ماسنتي مر لباد iyo mar saddexaad intaas ka bacdi qofka rabo inuu barto graphic design kan ama course kan rabo inuu ka faa'iideysto maxaa looga baahan yahay ama maxaa requirement ah looga baahan yahay step by step ayaan waxaan kugu tusi doonaa saddex option oo kala duwan okay midka ugu horeeya ama optionka koowaad waxa waaye inaad iska diiwaan geliso ardayna aad ka mid noqotid means waa inaad bixisaa $5 oo isdiiwaangelinta ama registrationka wax lacag kale lagu weydiin doono ma jiri doono insha Allah qaybta labaad waxa waaye waa inaad haystaa computer qof aan haysan computer ma baran karo course-kan waayo sababtoo ah wixii la sameeyo ama boor haday ahayd baraatig wixii la sameeyo inaad soo sameeysaa laga rabaa hadaadan sameyn karin waxba ha isku daalin fadlan waxaan ku leeyahay gurigaas ka joog qaybta saddexaad ama numberka saddexaad waxa waaye waa inay kaa go'an tahay inay course-kan baratid means wixii lagu diro waa inaad ka soo jawaabi kartaa waayo ama su'aal waa inaad ka keen kartaa hadaadan fahmin hadaa fahantay waa inaad sameyn kartaa okay halkaas markaan u gudbo software-ka aan ku baran doono graphic design-ka waa Photoshop halkeen laga heli karaa halkeen kala soo digaa okay waa su'aal inta badan arday isweydiinayaan dadka raba inay bartaan ama ay rabaan inay xirfadooda soo horumariyaan shuruudahaas ka soo gudbin okay waxaan tagaynaa browser-keena browser markaad tagto maxaa sameynaysaa meesha waxaa qoraysaa Adobe Photoshop meesha qoraysaa waxaa qoraysaa Adobe Photoshop qalis tusaale sorry meesha hadda meel labaad balaas aan leeyahay okay halkan ila fiiri marka okay halkee laga heli karaa okay waxaa sameynaysaa wareen wax laga baahan yahay meesha setting ka tagaysa kadib waxaa qoraysaa Adobe Photoshop CC 2022 free download get into PC qoraysaa get into PC waa website laga soo digo software-da inta badan laga soo digo waaye halkaas qoraysaa kadib inta la leedahay ama CG la u diraysaa okay marka sidii u dirtid kadib waxa ku soo bixi doona website-ka iyo software-ka ku soo bixi doona kadib waxa sameynaa software-ka la soo digayna software-ka wuxuu leeyahay version-nada way kala duwan yihiin waxaa jiro mid 2021 kii 2022 2020 waxaa jiro 2020 kii 2021 marka isku mid maaha okay halka markaad imaatid saan ugu soo bixi doona maxaa sameynaysaa qaybta ugu horeysa galaysa kan ugu horeeya galaysa Adobe Photoshop 2020 free download get into PC okay linka ugu horeeya soo furayna okay markaan soo furno toos wuxuu geyn doonaa website-ka dhexdiisa ayuu geyn doonaa wax lacag ah kaama baahno software-ka ila loo soo degtid ama qof ina lacag ku bixisid dadka qaar waxa laga yaabaa inay inta meel tagaan Adobe Photoshop u baahan waxyaabo saas dhaa marka adoo guriga joogtid ala soo degtid kaliya waxa u baahan tahay computer ama mobile-kaada waa ku soo degsan kartaa computer-kaada waa ku soo degsan kartaa wax GB ma badno wax yar waaye internet iyo waxa u baahan tahay kaliya mobile-kaada ama computer-ka okay markuu ku soo baa website waa get into PC website-kan ku soo bixi doona waxa sameynaysaa qaybtan hoose u soconaysaa iska ilaali marka qaybtan hoose marka u socotid logadiisa fiirin hadda hogaan internetka isku culays ah marka logadiisa inta soo doona okay halka marka maris marka fiiri Adobe Photoshop overview-giisa waxyaabo uu ku sheegayo inuu yahay version-ka 2022 iska ilaali magaca meesha iska ilaali 2022 laga rabaa maahan version way kala duwan yihiin tools is dheeri waxyaabo badan is dheeri marka waxa laga yaabaa hadda la soo degtay 2021 ama 2020 waxyaabo badan oo tools badan hadhowdii markii gudaha loo galo inaad fahmi weydo ama la qabso weydo ardayda marka saas darteed iska ilaali 2022 laga rabaa okay kabtalaad loogada iska fiir loogadiisa qaab noocan oo kale u taala Adobe Photoshop 2020 2022 qaybta hoose daad soo socdo features waxyaabo dheeraad u leeyahay halkaas hoose ayaad ka akhrisan kartaa ayaad ka fiirin kartaa okay muhiimadda aan u soo waxa way requirement ama waxyaabo la iga baahan yahay waay okay waxyaabo la iga baahan yahay waxyaabo la iga baahan yahay maxaa kamid ah okay halka marka joogtid waxa laga baahan yahay system requirement ama for Adobe Photoshop 2022 waxa laga baahan inta laga baahan ko operating system kaada ama computer-ka Windows kugu jiro waa inuu yahay semester Windows 7 8 ama 10 inuu yahay hadduu kugu jiro Windows 11 kuuma shaqeyn doono saas la soco computer-kaada waa inuu ku jiro Windows 7 Windows 8 ama Windows 10 okay intaas in ay iska fahanayaan jeclaa qaybtalaad maxaa waaye RAM-kaada waa inuu 2GB ahaada RAM-kaada waa inuu 2GB ahaada 2GB wax ka yar kuma anfici doono kuma qaadi doono saas la soco qaybtalaad maxaa hard disk-kaada waa inay ka banaan tahay 3.5GB ama 3 iyo bar waa inay ka banaan tahay process-kaada muhiim ah taas waan ka soconayna qaybta labaad haddaan tagno ama meesha muhiimadda kale qaabkan ula soo degi karaa meesha waxa qoran before installation intaadan la soo degin ka hor you must watch waa inaad daawataa this installation video guide video
intaadan la soo degin ka hor waa inaad daawataa muuqaalkan uma baahnid waayo anaa ku duubaayo soomaaliyan ku hadlooya kan english waaye qaabka ula soo degis qaabka installation oo sameynaysa ku sharaxa marka ka gudub qaybtana la isaga baahan yahay download aa leedahay halkaana ku dhufinaysaa 64 bit waa inuu ahaadaa computerka la soco meesha photoshopkan aan la soo degayno waa 64 bit ama 64 bit waa asigoo 32 bitna waa la helaa marka qoraysid aad dooran kartaa ama weydiisan kartaa okay hadduu yahay computerkaaga 32 bit kuuma shaqeyn doono saas oo la soo 64 bit ama 32 bit maxaa ula jeeda okay meeshana minimize aan leeyahay waxaan tagaynaa qaybta computerkan ku tusaaya meesha waxaa imaanaysaa CPU ama kadib right click dheh kadib halkee ka ogaan kartaa halkaan ka ogaan kartaa right click marka properties dooro properties marka doorto maxaa sameynaysaa computerkaaga inuu yahay 64 bit inuu yahay 32 bit halkaan ka ogaan kartaa halkaan ayaa ka ogaan kartaa okay halkaan marka joogtid fiiri meeshan fiiri ila fiiri system type maxaa waay 64 bit way kaga hadda adiga kaada hadduu yahay windows 10 waa kana way ugu jiraan hadduusan kugu jirin see ku ogaan kartaa meesha PC ga imaanaysa kadib right click gaa leedahay right click marka dhayd computerkaada properties dooranaysa properties marka doortid si automatic asa ku soo bixi doono waxa ku soo baxaya window kugu jiro system type ka waxna asa ku sheegi doono okay waan ka gudbi doonaa halkaas markaan ku gudbo waa ka gudbaya waa iska xiraaya cancel ale waa gudbaya chrome-ka taga chrome marka tago download halkaas ka soo download gareyn kartaa markuu ku soo digo wuxuu soo gali doonaa qaybta downloadka ayuu soo gali doonaa wuxuu ku weydiin doonaa passwordkiis maxaa waay 123 waay xasuusano ama meel ku qoro passwordkiis maxaa waay 123 waay softwareka markaa la soo degtay kadib wuxuu ku weydiin doonaa passwordkiis maxaa waay 123 okay tusaale aan ku siinayaa meesha minimize dheh kadib waxaan soo galaa CPU ga soo galaya ama PC ga ayaan soo galaa PC ga markaan soo furto maxaan sameynayaa qaybta waxaan tagayaa downloads aan tagaa downloads ayaan tagayaa downloads markaan soo furto bal ila fiiri downloads intuu ku soo gali doona intuu markuu ku soo galo maxaa sameynaysaa adiga hadda tusaale aan hadda fiiri setupkiisa qaab noocan ku soo bixi doona muuqaal aan uga hadlaya qaabka loo installation loo sameeyo insha Allah waa soo diri doona aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.